afartan sano ka hor aroornimo khamiis ah kowdii bishii muxaram sanadkii 1400 ee hijriyada islaamka kuna beegan bishii November 1979 weerar ayaa lagu soo qaaday xajka iyo guud ahaanba xaramka waxaana ku tukanayay kumanaan xujay ah kuwaas oo isugu yimaaday inay salaadii arooriyo tukadaan waxaana xaramka guud ahaan la wareegay ciidamo ka amar qaadanaya General Juhayman al-Utaybi oo ka soo horjeestay qoyskii boqortooyada Al Saud. Sacuudigu waxa uu sheegay in 300 oo qof ay dhacdadan ku dhinteen, balse xaqiiqadu waxay noqotay oo marnaba ka digi weyday maanka dadka in 5,000 oo qof dad lagu qiyaaso ay ku geeriyoodeen iyada oo dawladda Sacuudigu la kaashatay wadanka Faransiiska. waxaa laga yaabaa in badankiin isweydiisaan maxaa arrinkan hadda loo hadal hayaa. waxa weeye in 2019 ay idaacadaha Sacuudigu aad u boombooniyeen arrinta weerarkii xajka, gaar ahaan dhacdadaas oo xataa filin laga sameeyay, balse waxaa meeshan lagu darin in wax ajnabi ah caawiyeen. aan guda galno kashifida sirta qarsoon. waxay ahayd sanadkii 1400 hijriyada islaamka, waa bilow sanad cusub. waxaa masaajidka xaramka ku tukanayay xujay ka kala timaaday dunida daafaheeda. waa salaadii arooriyo mise weerar ayaa lagu soo qaaday masjidka xaramka. afarta dhinac waa lagu hareereeyay ciidamo agabkooda dagaalka wata, xataa saadkoodii u dhan yahay. waa ciidan gaaraya qiyaas ahaan ilaa 500 oo askari, waxaana hogaaminaya General Juhayman al-Utaybi. magacaygu waa Cabdiraxmaan al-Yaasiini, halkanina waa Koryaal. ku soo dhawaada muuqaalkeena. wadaagi haddaadan ka mid ahayn asxaabta kanaalka ku xiran, fadlan ku soo biir adigoo subscribe gareynaya, sidoo kalena like saar muuqaalka haddii aad ka heshay. mahadsanid. General Juhayman al-Utaybi waxa uu dhashay sanadkii 1936, waxauna ku dhashay baadiyaha Sacuudiga ee Saajir. waxay ka mid ahaayeen qabiilkii Juhayman, lafdhabartii ciidamadii lagu aasaasay laguna mideeyay qabaa'ilka dega Sacuudiga ee uu hogaaminayay boqor Cabdulcasiis Al Saud. Juhayman waxaa fursad weyn u noqotay inuu ku biiro ciidamadii wadanka, waxayna isku dhaceen kadib markii ay reer Al Saud ku eedeeyeen inay reer galbeedka u furfurmeen, gaar ahaanna waxa uu ahaa ilaaladii khaaska ahayd ee boqortooyada, halkaas oo ku mideeyay ciidan la fikir ah. waxa uu ka gadooday fikirka hogaaminta reerka ka taliya Sacuudiga ee Al Saud. markii uu xaramka soo weeraray lana wareegay, waxa uu bilaabay khudbad. waxaana laga maqlayay codka khudbadiisa dhammaan xaramka ilaa magaalada Maka inteeda badan. waxa uu ku eedeeyay reer Al Saud iyo xukunkoodaba inay yihiin kuwo faasidiin ah. waxa uu sheegay in xilligii Mahdigu soo degi lahaa la gaaray. warbaahintuna waxay sheegaan inuu Mahdiga ku tilmaamay seedigiis oo ahaa Suwaasikhri Muhammad al-Qahdani. waxa uuna codsaday in diinta sideeda loo qaato lana raaco sidii xilligii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. intuu uu qabsaday maahane intii kale ee xujayda ahayd ee ku tukanayay banaanka way baxsadeen. waxaana sidoo kale baxsaday imaamkii xaramka oo warka gaarsiiyay ciidamadii Sacuudiga ee Maka ku sugnaa. waxaana la sugayay amarkii boqorka, waa boqor Khalid oo xilligaas hurday. waxa uuna soo kacay abaare 1 saac oo subaxnimo. xogtii markii la siiyeyna waxa uu boqor Khalid ku amray in si degdeg ah gacanta loogu dhigo Juhayman iyo kooxdiisa. ciidamadii Sacuudiguna waxay u qalab qaateen dagaal dheer oo aad u kharaar, balse ciidanka Juhayman oo ka mintidsanaa kana diyaar garow fiicnaa ayaa dharbaaxo xanuunkeeda leh ku dhuftay ciidamadii Sacuudiga. waxayna soo rideen 2 diyaaradood oo nooca helicopterka loo yaqaano, waxayna sidoo kale gubeen 2 taangi oo ciidamada Sacuudigu lahaayeen. waxay raaxada uga qaadeen xabad iyo toogasho, maadaama askarta nooca shiishka iyo ridooyinka dhaadheer ee loo yaqaano shaabshuutaradu ay saarnaayeen qubiyada masaajidka xaramka, kana tooganayeen ciidanka qiyaas ahaantii 1 kiiloomitir masaafo u jidha. talo waa ku cadaatay Sacuudiga. maalmihii ugu horreeyay wax isbedel ahi ma imaan, guul darrooyin istaba jooga, balse xanuunka boqortooyada qoyska ku dhisan ee Sacuudiga waxa aad uga darnaa guuldarradaas. waa wadanka oo gacanta ka sii baxayay iyo kacdoono bilaabmanayay, gaar ahaan Shiicada waqooyiga iyo gobollo badan oo Sacuudiga ka mid ah. waxay reer boqortooyo u qabeen in kursigoodii faraha ka sii baxayo. talo waa ku cadaatay.
waxayna qayladhaan u dirsadeen Faransiiska inay soo afjaraan weerarkan maadaama ciidankoodu tabar waayeen. waxa uuna Faransiisku u soo diray 3 askari si ay hawshan u soo afjaraan, waxaana howlgalkan hoggaankeeda loo dhiibay nin la yiraahdo General Paul Barrel. sababta Paul Barrel loo doortay aan idinka dhaco. dib aan u yara laabano taariikh ahaan. wasiirka arrimaha gudaha ee Sacuudiga ayaa Faransiiska mar waxa uu ku tagay booqasho, waxa uuna codsaday inuu arko bandhig ciidameedka khaaska ah ee Faransiiska loona yaqaano GIGN. waxayna dowladaha reer galbeedku inta badan u sameeyaan bandhigyada nooca kan ah si ay ugu soo bandhigaan dowladaha Carabta hubka ay rabaan inay ka gadaan iyo tababarkooda si ay ula kaashadaan inay hub uga gadaan. waxa tababarka hogaaminayay General Paul Barrel. waxa uu ka soo booday helicopter kadibna waxa uu si heer sareysa u toogtay ama xabad ugu dhuftay jaakadaha rasaasta celiya. wasiirkii arrimaha gudaha aad ayuu ula ashqaraaray xirfadiisa aadka u sareysa iyo ciidamadiisaba. waxa uuna wasiirku wareystay Paul, waxa uuna weydiiyey ma noo tababari kartaa ciidamadeena Sacuudiga. General Paul Barrel waxa uu weydiiyey iga waran heerka ciidamada Sacuudigu marayaan. waxa uuna wasiirkii ku jawaabay ciidamadeenu aad ayay u tayeliitaan tababarkoodu xitaa dabaasha ma yaqaanaan. Paul waxa uu ku jawaabay ma tababari karno ciidan heerkaas aadka u liita maraya. halkaas ayuu wasiirka arrimaha guduhu ugu bogay xirfadda heerka sareysa ee ciidamada Faransiiska uuna ku bartay General Paul Barrel. waxa uuna ka codsaday wasiirka difaaca Faransiiska in Paul loo soo diro uuna hogaamiyo ciidamada loo soo diri doono Sacuudiga. warqadan aad aragtaan waxay caddeyn u tahay howlgalka, waana mahadnaq ay wasaaradda gaashaandhigu ugu mahad celinayso ciidamadii howlgalka galay ee Faransiiska ahaa markay ka qayb qaateen. waxaana ku qoran ciwaankeeda Mission de Mecca oo ah muhiimadii Maka ka dhacday. Paul ayaa fariin loo soo diray laguna amray inuu diyaarad qaato howlgalkana hogaamiyo, waxaana weheliyey labadiisa garab oo kala ahaa Imiyam iyo Christian Lambert. waxaana loo sheegay laguna amray inuusan cidna uga waramin meesha uu u socdo. warqadan ay qortay safaaradda Mareykanku waxay caddeynaysaa in 4 beri ka bacdi markii xajka ay qabsadeen kooxdii Juhayman inay ka codsadeen inay 2 duuliye oo Mareykan ahaa oo retired ahaa ama howlgab ahaa ay u sahmiyaan arrinka xajka. gadaal oo ay safaaraddu ka wareysatayna waxay u sheegeen 2 duuliye in arrinku adag yahay, ku dhawaadna dad gaaraya ilaa 50,000 oo qof la haysto, sidoo kalena aad u adag tahay in si toos ah loo galo. waxay isku dayeen Sacuudigu inay biyo ku shubaan xajka gebi ahaanba kadibna koronto ku qabtaan, balse ma aysan haysan biyo ku filan in xajka lagu qarqiyo ama lagu wada qoyo. kama aysan fikirin dadka ku dhex jira oo aan waxba galabsan ee hadafkoodu waxa weeye uun keliya inay arrinka iska soo dedejiyaan. Paul Barrel iyo labadiisa askari ee la socday waxaa lagu amray inay iska dhigaan kuwo aadaya safar dalxiis oo gaaban, waxayna ka soo degeen magaaladii Riyadh. waxaa goobta kula kulmay generaaladii hogaaminayay ciidamadii cirka, kuwa badda iyo kuwa bariga, waxaana hoggaanka guud u hayay General Ismaan oo ahaa taliyaha guud ee ciidamada. General Ismaan ayaa waxa uu Paul Barrel weydiiyey aaway kuwii kale, waxa uuna Barrel ugu jawaabay waxaan nahay 3 askari. General Ismaan waxa uu filayay in loo soo diri doono ciidamo khaas ah oo gaaraya ilaa 100 askari markii ugu yadhahay, balse waxa makaab la noqotay in 3 askari oo kaliya loo soo diro. Paul oo xaaladda guud ahaaneed ka wareysanaya ayaa waxa uu weydiiyey General Ismaan waa iminsa ciidanku hub noocee ah ayay haystaan. waxa uuna ugu jawaabay garan maayo. maadaama uu Paul helin xog ku filan, waxay go'aansadeen inay goobta yimaadaan waa xaramka waxayna soo kaxaysteen diyaaradoodii iyo 650 kiilo oo qalab dagaal ay wateen, waxayna yimaadeen magaalada Daa'if. waxay magaalada Daa'if kula kulmeen General Ulaybi oo luqadda Faransiiska aad ugu hadli jiray, waxa uuna noqday turjumaankii khaaska ahaa ee ciidanka Faransiiska. waxay bilaabeen Paul iyo kooxdiisuba inay tababar degdeg ah siiyaan ciidamadii Sacuudiga ahaa si ay kalsooni dheeraad ah ugu helaan. dhanka kalena xaramka dhexdiisa xaalku waa kasii darayay oo xataa ciidamadii Juhayman al-Utaybi
waxay gubeen taangiyo dagaal oo weerar ku soo qaaday. dhanka kale ciidanku Sacuudigu ma lahayn tababar u qalma, ma yaqaano sida loo adeegsado maskiyada oo wajiga loo gashto xitaa, waxayna noqotay in kow looga soo bilaabo. waxay haysteen jaakadaha rasaasta celiya oo fadhiid ah, waxay tuseen jaakadihii Faransiiska lagu sameynayay. Paul waxa uu amray mid ka mid ah raggiisii inuu xabad ku soo tuuro jaakada, mise kama dhexbaxayso. waa ku qanceen Sacuudigii, wayna dalbadeen. ganacsiguna hadda meesha ayuu ku jiraa oo wax bilaash ahi adduunka ma jiro. Paul iyo kooxdiisu waxay dejiyeen qorshihii lagu geli lahaa xajka, waxayna ka fursan weyday maadaama cadaadis weyn kaga imaanayay labada dhinac ee Sacuudiga iyo Faransiiska oo rabay in arrinkan si degdeg ah loo soo afjaro. ayaa waxay ku khasabtay in kooxdii Paul ay soo jeediyaan in la adeegsado gaaskan waxa uu sababayaa inuu qofku wax arki waayo, sidoo kalena dagaalami waayo. waxa kale oo uu sahlayaa inuu naqasku ku dhago qofka, dadka neefta qaba iyo dadka sanbabada ka xanuunsan. waxa uu dalbay Paul agab dagaalo isugu jira 7 tan oo gaaska ah, balse generaaladii Sacuudiga ahaa waxay amreen in la dalbo ilaa 70 tan oo gaaska ahaa iyo agabkii kale howlgalka lagu geli lahaa. warqadii markii ay gaartay Paris ayaa wasiirkii difaacu diiday inuu saxiixo in gaas intaas leeg la bixiyo. waxauna Paul Barrel ku yiraahday, ma qaadaysaa mas'uuliyadda arrinkan? Paulna waa ka diiday, maadaama gaasku aad u badnaa. 70 tan maahan gaas macquul ah. arrinkii waxay noqotay in madaxweynaha Faransiiska soo dhex galo oo Paul weydiiyo fursadda ay howlgalkan kaga guulgaari karaan. waxa uuna Paul Barrel ku jawaabay, 85% waan guulaysan karnaa. madaxweynuhu wuu aqbalay in agabkii la bixiyo, sidii ayaana loo keenay gaaskii intaas leekaa gudaha Sacuudiga. diyaarad ayaa soo qaaday si dhuumasho ah ayayna u keentay Sacuudiga. muddo 10 daqiiqo ka yar ayaana alaabtii lagu dejiyay, wayna kala wareegtay. 4 Diseembarna waxay bilaabeen kooxdii Paul weerarkii, waxayna toogasho ku bilaabeen ciidamadii shaabshuutarada ahaa ee qubiyada saarnaa. waxay sababtay inay dabaqyada hoose u degaan. Paul iyo kooxdiisuna waxay isticmaaleen qalabka dhulgariirka loo isticmaalo si ay u ogaadaan goobta dhabta ah ay ku dhuumanayaan ciidamada Juhayman al-Utaybi. waxayna weerarkii bilaabeen subaxnimo aroor ah. waxay dalooliyeen godad dabaqyada hoosteeda ah ee xaramka, halkaas oo ay gaaskii dilaaga ahaa kaga daabuleen. Juhayman iyo kooxdiisu waa ay u diyaarsanaayeen weerar, balse marnaba isma lahayn gaas ayaa laydinku soo weerarayaa. haddii uu subaxnimadii weerarku bilowday, waxa uu dhammaaday duhurkii. guud ahaanba shanqartii waa ay ka yaraatay xaramka, oo ummadii oo dhan dhulka ayay ku wada daadatay. waxaana la yaab noqotay inay weerarkii ka badbaaday 70 qof oo uu ka mid ahaa generaalkii hawsha watay ee Utaybi. waxaa meesha ku geeriyooday dad gaaraya tiro ahaan qiyaastii 5,000 oo qof. kabtan Paul Barrel oo Al Jazeera wareysatay ayaa warbixintan ka hadlayay, waxaana la weydiiyey, masjidka xaramka sidee u gasheen iyadoon qof muslin ah maahee qof kale loo ogolayn inuu xaramka galo, iska daa xaramkee aan maka loo ogolayn? waxauna ku jawaabay, cidnama ima weydiin diintayda. Sacuudiga waxa u darnaa oo keliya in hawshan loo soo afjaro. waxay i weydiiyeen oo keliya qalabka aan isticmaalayo ma yahay qalab ku aboon howlgalka, mana kala jeclayn ciddii ku dhimanaysay cid kalena. waxa uuna ku daray, dhimashadu waa badnayd, waxaana ka garanaysaa kamiyadii gaaska ahayd ay dalbadeen oo 10 jibaar ka badnayd intii aan u baahnaa. waxayna rabeen in dadku kala yaraado si sirtooda aan loo ogaan. waxauna Sacuudigu sheegay in 300 oo qof ay hawshaas ku dhinteen, balse arrinkan shaki weyn ayaa ku jiray sanado badan oo dowlado badan ayaa waxay waayeen xujaydoodii oo aan dib u soo laaban. waxayna u badnaayeen dadkaas dad ka kala yimaaday dunida daafaheeda, gaar ahaan Aasiya, wadamo ay ka mid yihiin Indonesia iyo wadamo kale oo adduunka ka mid ah. Paul ayaa waxa uu ku daray hadalkiisii, run ahaantii aad ayaan ugu faraxsanahay inaan caawino dowladda Sacuudiga, balse sidoo kale waxaan ka murugaysanahay dadkii sida ba'naa loo laayay, muddadii aadka u koobnayd aan loo turin. gaaskuna waxa uu saameyn ku yeeshay muddo 5 sano ah dadkii xajka imaanayay, maadaama uu aad u badnaa, sidoo kalena faafitaan ogaa. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa muuqaalkeenni maantay.
haddii aad u baahan tahay muuqaalkan waxaad ka daawan kartaa isagoo documentary oo dhammaystiran telefishinka aljazeera barnaamijka la yiraahdo ma khufiya acdam mahadsanidin fadlan ha ilmaamin inaad subscribe tiraahdo wabillahi tawfiiq